Sagaal kulan oo Champions League ayaa caawa dhici doona. Sagaalka kulan waxaan isleeyahay ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda Dortmund iyo Manchester City oo City haddii ay guuleysato 10 dhibic ayay yeelan doontaa, waxayna tegi doontaa kaalin aad iyo aad u fiican ayay geli doontaa oo waxaan fili doonaa kaalinta saddexaad inay geli doonto. Si kastaba haatee sagaalka kulan oo xalay dhacay ciyaaro aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay oo Arsenal waxaan la soconnaa Slava Prague inay awood sheegatay ay 3-0 ay ugu adkaatay, kaasoo ciyaaryahankii Michael Moreno oo nambarka 9 oo beena u ciyaaraya inuu 2 gool u dhaliyay, taasna booskaas oo Gyökeres uu ka maqnaay inuu meeshaas u buuxiyey. kooxdaasna koox awood leh maysan ahayn oo waa ogeyn in Arsenal ay guul ka keenayso. Arsenalna 8 ciyaar ay ciyaartay 1 gool lagama dhalin, oo ilaa hadda waxaa malaysaa Arsenal marmar ka dambeyso awoodooda inay sii kordhayso, khaasatan xagga difaaca inay aad iyo aad ay u sii fiicnaanayso. Arsenalna waxay u guurtay kaalinta labaad oo Champions League ayay gashay oo 4 ciyaar ay ciyaartay 4tiba way guuleysatay oo 12 dhibic ayay leedahay. Si kastaba haatee labada ciyaar oo kale aad iyo aad ugu xiisaha badnaa waxay ahayd kooxdii PSG oo gurigooda looga adkaaday iyo Real Madrid oo ayagana xalli eber looga adkaaday. Inkastoo aan ku saadaaliyay in Real Madrid ay badinayso, hase yeeshee waa laga adkaaday. PSG iyo Bayern Munichna waxaan ku saadaaliyay in PSG ay badinayso. Labadaas arrinbo waxaa guuleystay kooxihii kale ayaa guuleystay, laakiin Arsenal iyo Slava Prague Arsenal ayaa guuleysatay oo 3 ciyaar oo aan saadaaliyay 2 ka mid ah waa laga guuleystay, 1 ka midana waa guuleystay. Laakiin Liverpool runtii ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay soo bandhigtay. guushii ay gaartana waxaan qabaa waxaa u sababahay difaacooda ayaa u sababahay, khaasatan labada garab oo ay saarnayaan Bradley iyo Robinson, khaasatan wiilka yar ee Bradley kaasoo aad iyo aad iskaga xakameeyey ciyaaryahankii Vinicius Junior, kaasoo aan la soconno aad iyo aad inuu dhaqaaq badnaa una orod badnaa, hase yeeshee marnaba ay u suurtageli weysay inuu Bradley oo maro oo kubad ka soo galo xarqin 18 oo kubadna soo dhigo, kaasoo aad iyo aad u xakameeyey. Inta badanna waxaa la soconnaa kooxdii Liverpool difaacooda inay inta badan ay gadaal ay joogeen oo weerarkooda aad iyo aad uusan u fara badnayn, inkastoo ciyaaryahankan oo lugta bidixda ku dheelayay oo dhinaca bidixda u saarnay kooxda Liverpool Robinson, inkastoo dhinacaas bidixda aysan ciyaar badan ay ka socon oo Arda Gula oo ka ciyaaraya, kaasoo aan la soconno inuu farsamo badan leh, hase yeeshee orod uusan lahayn, taasna ay u suurtagelisay Robinson wax dhibaata inaysan u iman. Vinicius Junior waxaa u malaysaa Ibrahim Konate iyo Van Dijk aad iyo aad inay u xakameeyaan, xakameyntaas ay xakameeyaan Liverpool inay fursado u haysatay inay weerar ay ku qaado. Si kastaba waxaan qabaa Liverpool goolka ay dhalisay oo McAllister madaxa ugu dhaliyay, laakiin waxaan qabaa ugu yaraan 3 gool inay dhali kareen ayaan isleeyahay. hase yeeshee arrintaas waxaa ka hor istaagay goolhayaha Real Madrid, kaasoo aan dhihi karo inuu yahay goolhayaha ugu fiican maanta adduunka, Courtois oo kubada badan ka seefgariyay, khaasatan ciyaaryahankii Szoboszlai oo kubada xarqin 18 banaankeeda kasoo gamay, kaasoo si fiican iskaga qabtay, iyo Ekitike oo kubad aad iyo aad u fiican xarqinta 18 loo soo dhigay oo Valerian Viis u soo dhigay. waxaan qabaa Ekitike inuu arrintaas si fiican u sameeyey oo kubadda dhulkay ku socotay dhulka muusa sii raacsan wax yar ayuu kor u qaaday, laakiin lugta waxay ku dhacday Courtois ayay ku dhacday. Ekitikena ma qabo qalad inuu galay oo sidii la rabay ayuu sameeyey, hase yeeshee goolhaye heer sara ayaa meesha joogay oo runtii ka badbaadiyey. waxaan isleeyahay Real Madrid guuldarrada ku dhacday inay sababteeda aad Liverpool oo awoodoodii soo kortay. Liverpoolna waxaan qabaa sida ay ku ciyaartay haddii hadda Super Sundayda ay ula ciyaarto kooxda City ayna ka guuleysatay inay dib u soo noqonaysa kalsoonidooda iyo niyadooda, taasoo Valerian Viis la ciyaarsay oo Gabo uu fadhiisiyey. Valerian Viisna runtii inkastoo geeska dheelaa meel walba ayuu tagay oo dhaqdhaqaaqiisa aad iyo aad u fiicnaa, runtii waxaan qabaa inuu ciyaaryahan aad iyo aad u fiican. laakiin Liverpool markii laysku soo daro waxaan dhihi karaa ciyaaryahanka man of the matchka u qalmay inuu ahay ciyaaryahanka Szoboszlai, inuu ahay ciyaaryahanka man of the matchka, inkastoo Bradley laftigiisa oo nambarka 2 ka ciyaaraya wiilkaas dhalinyarada laftigiisa inuu u qalmay in la siiyo ciyaaryahanka ugu fiican, sababtoo Vinicius Junior ayuu meel iska saaray, kaasoo aan la socon ciyaartii
oo Barcelona ay la ciyaarayeen markii lasoo bedelay inuu ka xanaaqay hase yeeshee xalay wuxuu u qalmay in la bedelo ayuu u qalmay inkastoo Liverpool ee cayaaryahankoodii Alexander Arnold oo u ciyaari jiray kubad kasta oo taabto ay ku qaylinayeen ay ku urinayeen taasna waxaan qabaa taageerayaasha Liverpool inay qalad ku aad inkastoo cayaaryahankaas oo go'aansaday inuu dhankaas iyo oo aado Real Madrid taasoo uu rabay inuu wadan cusub barto kooxa cusub oo challenge cusub oo galo laakiin si kastaba haatee waxaan isleeyahay guuldarro ayaa ku dhacday Liverpoolna way u qalantay xalay inay guul gaarto PSG iyo haddaan u leexdo Bayern Munich oo aan la socdo tababaraha kooxda PSG Vince Company waxaan qabaa cayaar aad u fiican u soo bandhigay ninkaasoo Pep Guardiola shaxaan nambarka u ahay shanaad u jooga difaac u jooga waxna ka bartay afka horena ku raacay taasoo ay keentay goolkii labaad in Marquinhos uu ka xoogo Diaz oona si fudud uga dhaliyo si kastaba ahaatee waxaan qabaa inay Bayern Munich qaybtii hore ay aad iyo aad u fiicnaayeen laakiin markii laisku soo noqday Diaz waatuu qalad ku galay Hakimi oo dhaawac u geysta dhaawacaas uu u geystana waxaan la soconaa inuu Hakimi cayaarta uu ka baxay waxaana fili doonaa Hakimi cayaaraha Afrika ee lagu qaban doono Morocco December waxaa dhici karta inuu gafo ayaa dhici karto taasna oo dhaawac weyn uu kasoo gaarsiiyey anqowga taasna waxaan qabaa inay dhibaato weyneed waxaan la soconaa Diaz inuu yahay ciyaaryahan aad u fiican oo weerara hase yeeshee raacitaankiisana inuu aad iyo aad u adag yahay oo ciyaartooyda uu jecel yahay inuu ku boodo oo kubadda dib ugu soo celiyay laakiin taas waxay keentay in Hakimi oo dhaawac weyn oo u geysta ayay keentay PSG-na markii Bayern Munich 10 ay naqatay culays ay saartay hase yeeshee waa u suurtageli weysay inay goolal ay ka dhaliyaan inkastoo hal gool ay ka dhaliyaan haddana Bayern Munich aad iyo aad ayay isu difaacday runtiina Bayern Munich waxaan qabaa tababarahan inuu Vince Company inuu aad iyo aad kooxda u dhisay oon aad iyo aad u adkeeyay inkastoo ninkan aan la filayn inuu heerkan kooxda uu gaarsiinayo hase yeeshee waxaan qabaa inuu yahay tababare aad iyo aad u fiican waxna ka bartay Pep Guardiola Bayern Munichna kala horeynta Champions League waa kooxda koowaad oo afartii cayaar ee cayaarta afartii way badisay oo 12 dhibic ayay leedahay Arsenal laftigeeda 14 cayaar ee cayaartay Arsenal laftigeeda afartii way badisay PSG Inter Milan Real Madrid iyo Liverpoolna 9 dhibic ayay wada leeyihiin oo kaalin saddexaad ayay dhammaantood ay ku wada jiraan si kastaba haatee caawa haddii City ay badiso 10 dhibic ayay yeelan doontaa kaalin saddexaad ayay geli doontaa Inter Milan laftigeeda haddii ay badiso kaalinta saddexaad ama labaad ayay geli doontaa waxay ku xirnaa doontaa goolasha ay dhaliso oo sababtoo laftigeeda 9 ayay leedahay 12 ayayna tegi doontaa marka Champions League-gana waxaan qabaa xiiso weyn inuu leeyahay cayaarta caawa dhici doontana Dortmund iyo City oo indhaha lagu hayo City oo guul fiican kasoo gaartay kooxda Bournemouth ee Premier League si fiican u ciyaartay caawa waxaan arki doonaa Haaland goolal ayuu sii dhali doonaa Ryan Cherki oo nambarka 10 uga ciyaaro oo Faransiis oo marmarka dambeysa ciyaartiisa aad u soo korayso caawa ma la ciyaarsiin doonaa oo wacdarihii oo dhigay ciyaartii Bournemouth labada gool oo u dhigay sidoo kale muu Cherki sameey doonaa mase waa la fadhiisi doonaa Rodri ma ciyaari doonaa ciyaartii Bournemouth gadaal ayaa laga keenay 10 daqiiqo dhiman booskiisa Nico Gonzalez ayaa booskii nambarka 6 galay booskaas ma soo cesho doonaa Rodri mase Nico Gonzalez oo aad u fiicnay ayaa loo dhaafi doonaa City waxaan arki doonaa qaabka ay la timaado axadana waxaa ku soo socota ciyaar adag oo Liverpool ayaa ku soo socoto oo Liverpool haddii iska reebto City kaalinta labaad ayay ku soconaysaa oo kooxda Arsenal oo Sunderland u tagayso haddii laga badiyo Arsenal 3 dhibic ayaa u dhaxay doonto laakiin haddii City laga adkaado waxaa dhici karta markaas 9 dhibic inay u dhaxay doonto City iyo Arsenal marka Cityna arrintaas ayay ka fikiraysaa oo caawa Champions League-gana inay badiso weerta axadana indhaha ayay ku haysaa Pep Guardiola muxuu keeni doonaa bal caawa ayaan ka warsugi doonaa